Abdulqaadir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dagaal waxaa jira aad adiguna hogaaminaysay dagaalkii madaxweyne xasan sheekh runtii oo taageero u ahayd markii caws weyne iyo deegaano badan oo Soomaaliya ah lagu xoreynayay runtii hoggaan ku ahayd dad la mid ah arrintan hadda Saciid Cabdullaahi Deni garab taagan sidoo Cabdulqaadir ciyaarna waa daawanaya waa hadli karaa dhib ma laha hadli karaa ma kooxdii hadii gool irsoo hadli karaa Manchester gool leedahay warqara waa islaami madashana waa salaami Cabdulqaadir su'aal waa kusii hordhigaya aad iyo aad xilligii marka aad dagaalkaas taageero weyn u muujinaysa dad badan oo hadda Saciid Deni agtiisa joogo actually weliba saaxiibo Facebook islatiin aad dagaalkan si aad u dacaydinaya beenna ka soo sheegay tiro badan oo si tiro badan weliba uu soo dhaqmay xilliga ma ahayn Puntland ma aysan lahayn joojiyo waxaan wadaan oo runtii qaarkood mararka qaar Puntland ku sugnaa bal sidee idin saameynaysaa hadda arrintu haddii ninka wixii uu dantiisa intuu ka eegto eedeyntan hadda Yacquubi loo soo jeedinayo si kale mar kalena Twitter waa ku soo dhaweynaynaa soo dhawaad Cabdulqaadir aad baa u mahadsantihiin dhammaan madasha qaabaqaabayaasha barnaamijka garaadkoo meesha ku casuuminaya saaxiibo qaali halkaa uga jeedo qof kasta maqaamkiisa magaciisa ku salaamay horta niyahow inkastoo garaad Yacquub caawa uu marti yahay ani horta inaan Deni ka hadlo waaba iska daayay waxyaabo badan aan qiimeeyay qofka markuu siyaasi yahay oo positive uu yahay oo Puntland iyo Soomaaliya inuu hogaamiye rabo waa inuu dulqaad leeyahay Deni waxaan uga cabsi qabay doorashada soo dhaafay inuu madaxweyne noqon doono waa sirnaa aad baa uga shalay waxaan arkay Deni iyo Xasan Sheekh oo isaysta oo Deni Ethiopian taageeray waxaan arkay Deni oo taagan maxaa diin loo cafiyay waxaan arkay Deni oo taagan cunaqabateynta hubka maxaa loo qaaday waxaan arkay Deni oo taagan lacag Soomaaliyan lacag u sameysana micnaha aniga lacagta sameysana micnaha intaasna isaga ma oga taageero badan oo Soomaaliyeed oo irifka ugu dambeeya Soomaaliya ka jooga labada irifba Deni hadda waa ku diidan taas markii cid yar oo qaraabadiisa oo taageersan marka laga tago Soomaalidu waa in dargarad waay waxbay dhageysataa waxbay daawataa waxbay maqashaa waxbayna ka qaadataa haddaad lacag samaysatay oo cunaqabateyn u diiday dee meesha u socotid bari markaa madaxweyne noqotid waa ku garan karnaa waay meeshaas horta siyaasadiisa guud ku dhimatay haddaan kusoo laabto sidee kuu saameynaysa su-aashaada jawaabteeda aniga Xasan Sheekh deegaanadan hadda uu xoreeyay waa ku taageeraya fiiri qaad midna idin sheegaya anoo Soomaaliya xataa hadda xamara joogaa markaasna xamara joogay anigoo nin waceysla ah ayaa haddii masagawaa la soo weeraro ama ceel dheer la soo weeraro xasanna ku taageersan baa dhihi jiray maanta waa nagu dhacday usha waa nagu dhacday dee waana dhiirigelin dee waxaas waa dhacay saan baa nagu dhacday maalintuu guulaysana aan sheegay cid dood ii qabta iyo cid ii kala jecel iyo cid idhahaysa maxaa u hadashay ma jirto intaas markay maraysa marka shalay waxay ahayd Xasan Sheekh baa la xifaaltamaya maantana way ka sii ridataa Yacquub baa maxkamad soo saaraya Yacquub waxa waa heavyweight waaye ma ku shaqaysatay ma wiilkaagii oo ku taageersay wuxuu dhaliil uu qaba ama reerkiisa qanci intaas waa daacisha ku soo aftay dagaalka dalku jiro horto dagaalkan dad badan ma oga dagaalkan 5,000 ilaa 10,000 oo BMPF ku jirta qaraabadiisa ha hogaamiso baxdulba anta hogaamiso cidii raba ha hogaamiso shaqadeeda ma aha Deni markii labaad oo la doorto waay hadda 5 sano 6 sano waa joogaa maxaa hadda dagaalka keenay bawaariijta markii lagu doorto wax dalka lagu dhaariyay Puntland lagu dhaariyay 6 sano maxaa u daawanaysa intay xoogeysanayeen intay buraas ku jireen intay ilmo ku dhalayeen Iraaqiyiina intuu jiray Deni micna waa maya taas bedelkeeda yuu la dagaalay niman asigu aaminsan inay kala dheeraysiin Bahdir Liila boqor hala caayo asad diyaan hala caayo maxamuud hala caayo gaalka dagaalka ka ciisariyo hala buuso saan waa hala micna taas asay ugu muhiimsan micna okay dagaal baa socda hadda waqtiga baa soo daahday malaha dagaal baa socda daacish 10,000 oo BMPF maanta garow ciidan ma joogo boosaas ma joogaan qarda ma joogaan gaalka ma joogaan macawisay hal dhawac rabal baabuurta buri isku geey maxaa diiday marka 10,000 oo wiilo BMPF meesha la geeyo awood daacish oo argagixisa meesha joogtay inay khasaare geysan karaan 10,000 oo wiil meesha u watay khasaare geysan karaan hadduu Yacquub sheegay ma dhibba ilaan 24 wiil ma 10,000 oo BMPF meesha la geeyo ma 10 dhiman karin mise 100 dhiman karin mise 200 dhiman karin argagixisa faa'iido ma laha waxna waa dishaa waana la dilaa muhiimadda in laga guulaysto waay waxa kale rabaa inaan hadalkii ku soo goobo argagixiso dawlado badan oo caalamkay galeen gurmad baa dawladda iska dhaafay dawladdii iska daayay gurmad baa caalamka la weydiistaa Mareykan oo kaale inta kaale Ingiriis oo kaale Faransiis oo kaale argagixisadaan aan la dagaalanno dawladda caalamiga ah taas asayga ma tarin kara samaysan iska
daayay dowladii ma aqoonsani dowladda Soomaaliya maamulku dowladeedii ma aqoonsani argagixisay international soo wax dhigi kara marka aan leeyahay dani siyaasadda Puntland waa ka soo dhamaatay tii Soomaaliya hore u isaga dilay meesha u socdana ma aqaano wasiiradiisa asaga kullina waa isku af kuwa taageersan kuwa wasiiradiisa ilaa asaga waa isku meeg micna dhaqan siyaasina ma laha dulqaad siyaasina ma laha reer Soomaali isku keena maali Maxamuud Suleymaan isku heekirin Ismaan Maxamuud isku heekirin bahdul baantii bahdira isku heekirin marka aniga waa baranay Soomaali hadaan nahay dani waa baranay wasiiradiisana ha iska caytamaan wara fiir wasiir Hirshabeelle caytamaan kimis oo mid Koonfur Galbeed oo mid Jubbaland oo mid Soomaaliland xataa ma caytamaan waxa fiir dani bilba ishiya wasiirkiisa warfaafinta iyo kuwa asaga la halmaala waxay sheegayaan an waxay habeen korriyoodan iyo waxay soo insan ma waxa uu dani kula sheekaysto maraahid aan ka fiirsano waay wuxuu dani aaminsan yahay qaabka uu hadlo baan ka fiirsanaa markii taas rabay hadii dani maanta Yacquub maraayo isagoo maalin kalena najmuudoon maxkamad hal saar dhahayn oo arkay inta saydii sheegay waan ka baxay su'aalka weydiiyo saaxiib afiyanku ma yaani isciidan wali anti Soomaaliya lama kasugo ما يحيى سامو استسلاش كل إن شاء الله ماريستا وعرض بدن باهرك كلامتين الناس بس صحاب شنو قررت نجرين عبد السلام أيانا سكوب قدام تعال مش غير تري هذه ترتيب isku nidaam isay awood buu haystay inuu kuwa dibadda joogaan ku dacweyn karo oo intuu ساعة أفر ساعة. أنت البول هذا يسوق قاعد جري صوته وسنة كذا شو كلا بقى. تود علاقات بيني وحاول كسر كذا. مركا ليتني حطوه صومالي ما حطوه. يعني هيك حتى يعطوه هيري هذا حصل الشيخ يدني لما هدف كلي حصل مركو هول قبنايو غير بقول كي بقولوا صحيح حتى مدهايو حصل مركو هول قبنايو اما ارجعسها لا دير اما شقه لا قبط معارضكيسنا ما دغيستو وين فيسبوك iyo تويتر ka hadlan ma dhageysto shaqadaas uu iska jiraa laakiin odadani waxa uu qabanay waxa ugu fiican Twitter Facebook WhatsApp group shaqadaas uu ku jiraa marka halkii labada dhinac isku haan ahaynba hadda Twitter ma isticmaalo Facebook shaqadiisa ma Cabdiraxmaan Cabdi Sugan inta ka qeeriyo hadduu qeeriyo Sheekh Shariif Yacquub iyo boss iska badaa adiga shaqadiisa ma qofku waxa rabaa goorma horta hadafkaada gaari kartaa marka iska inda tirto kuwa ka soo horjeeda meena laakiin nin habeenka si Yacquub ku seexanayo ina anaga xataa falanqeen uma qalmo wallahi aad bad baasatay يعقوب ها عليو سؤال هذا قاضي حسن الشيخ محمود ضد وأود ولا ينضل دبدنا كسر حري كرو بدنا كحري كرو أما دعوين كرو وكسر كرو ضيمو وصمين كرو وأتنا ديرو هايستو أيوه وحى حتنا ودني ما كسر ما يطلع لك كسر حتى هو يضد دجال كيبا وحويان أنا لا بلعبه وجوده سعيد إنه كان بلعبه إنه ضد كسر تشيستو أو maxkamadii arkisa lagu tala galay dadkii innocentiga uu isticmaalo Soomaaliya haduu tago muxuu sameyn karaa علي وانت سؤال هذا كاغا جوابين عبد القادر بوس بان ور u dul furaya عبد القادر horta waxa la yiri ninkii nin raba gabadh xaaskaaga oo gabadheeda qaado uga qanco dani Yacquub si aad ma qancin karo sababta uu qancin karo waxa weeye Yacquub waxaan waa haday u taagan yahay marka inay hurdo la'aan ku tahay waxaan waa haday isagu waas og yahay inuu tuug yahay warkaygu marka war Facebook kaliya laga sheegay ma waa war reer dhan oo waxaanu ka maqan yihiin ee xambaarsan yihiin war aanu inta meel iska soo fariistay oo kaamirada iska daartay aan iska hadlayo ma sida habar iska hadashay warkaygu dani saameyn buu ku leeyahay saameyn wuxuu u yeelanayaa